بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. أولا إن شاء الله هذه الله هي جمعة مبارك دمانتنا جمعة ونكسن ملك ودي جوتان إلى سبحانه وتعالى عافمات يفرحت إله سبحانه وتعالى هيدين سيا دمانتنا ملك ودي جوتان. أحبتي في العقيدة ما تحان ربا laba duco aad iyo aad u qiimo badan ayaan rabaa maanta insha allah inaan nil wadaago. labada duco waxaa laga rabaa qofka mu'minka muslimka mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad dareento cariiri badan, murugo badan, weelweel badan, cabsi badan. waxaa laga yaabaa inay keento sababtaas deen lagu leeyahay oo kale, ama maxaa la yidhahdaa mararka qaarkood in shaqo la'aan ay dhacdo, wax la'aan ay kugu dhacdo, kadibna xataa inuu shaydaanka qalbiga uu soo geliyo يعني قاب قلدن وحرانا إن أدوح كراسة توجني ما هنقطه دعها نقطه وحنقطه دينت مركي كوفر بدته أو محل إرادة داود ود إن الجدو مركي إبليس وحوا الشيطان وحلاقيه ومسحته حياه بدن إنه كوفره. إذا مرك ما أنت حان ربا دعاء لبضان دعاء آد قيمة بدن إن تحرف لسان إلى سبحانه وتعالى لقيه با كدمنا دواتوين كعلاس كدين waxyaabaha soo dhaca cabsidaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu qalbiga ka saaro albaab oo khayra Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku furo. awalan ducada koowaad waxaa laga rabaa inaad aqriso inaad dhahdo allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. taas waa tii koowaad. haddaad aqriso Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kugu kaafinaya oo kugu deeqaya oo qani u kaaga dhigaya xalaashiisa mar walba xataa ha yaraato waad ku qancaysaa waad ku farxaysaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku barakeynaya, xaaraanta Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kaa fogeynaya. taas waa mid aan kugu celiyo marka ugu dambayso. allahumma kfinii bihalaalika can xaraamik wa aghnini bifadlika caman siwaak. tan labaad marka lagaa rabo inaad aqriso haddii weel kurbo badan aad dareento, cabsi badan aad dareento, oo deen badan lagu leeyahay, ciriiri badan aad dareento, maxaa laga rabaa marka inaad aqriso ducadan si fiican u xifdi. nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadan ina baray dhammaanteen. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, wuxuu aqrin jiray allahumma innii acuudu bika min alhammi walxazan walcajz walkasal walbukhl waljubn wadalaci addayn waghalabati alrijaal. rawaahu albukhaari. xadiidkan dambana bukhaari aa soo saaray ducada. إذن أحبتي في العقيدة بل دعاء آد قيمة بدن للرجيسة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هداد حفظ سؤال أقرصه بفضل الله سبحانه وتعالى فضل جيسة أيوك صار دونا إن شاء الله كجبح دونتا إليري بدن دينتا وليس دينتا cabsida weelweelka iyo maxaa la yiraahdaa in murugada badan aad dareemayso. idan ahibati fil aqida waa duco aad u qiimo badan. waxaan laga rabaa kaliya inaan xifdino oo mar walba aan aqrino markii xaalada adag aan dareemno insha Allah, ama xaalada kale xataa mar walba qofka inuu ducooyinka iska aqriyo waxa waa shart intiisan kugu imaana marka qaarkood laga hortagaa. marka in aad la badiyo ducooyinka adkaarta oo kale mar walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa wax laga magan galaa dhibaatooyin iyo shar badan ku soo socdo. إذا أحبتي في العقيدة وحايقو عدسي هذا كسو قارت إن شاء الله فيديو كان إله سبحانه وتعالى يا خير كورجع على ذي سكودي أديقن إن شاء الله ولالك هاي كله إن الله جعل خير كتيشر قريس وحبها حسد قفل بد قارسي إله سبحانه وتعالى أجر كذا أيالو قرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.